degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa markii ugu horeysay waxa laga hirgeliyay jaamacad ay dhiganayaan ardayda iyagu dhameeya dugsiyada sare ee degmadaasi waxaana arinkaasi aad u soo dhaweeyay bulshada ku dhaqan degmada Walaweyn. Mahad Axmed Cali ayaa warbixin arinka ku aadan Walaweyn inooga soo diray. jaamacadda caalamiga ah ee Jubba oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa noqotay jaamacaddii ugu horeysay ee xarun ka furata degmada Walaweyn. maraan booqday xarunta jaamacaddani ayaan waxaan kula kulmay Professor Sido Yarow Kalba oo ah gudoomiyaha jaamacadda Jubba farceeda Walaweyn wuxuuna TV-ga RTN kaga warbixiyay fakaltiyada jaamacadda ay bixiso iyo tirada ardayda dhigata jaamacaddani. waxaan joognaa xarunta jaamacadda Jubba kampaskeeda Walaweyn. إن شاء الله وحنا مهد آد وبلارن له مرتوه رئيسا تلفزيون كا RTN وبرنامج جدينا إن معركتي ميل والجارسيو قرشي استجن آد أيوم معركتي ومعركتي هاي برنامج كا ومعركتي نمانتا نوصل بعض التلفزيون كا يوريا وجامين هاي برنامج أريمهاسي. أنت أسمع كان في جوجو halkan waa xarunta jaamacadda Jubba kampaskeeda Walaweyn. markii aan aragnay dhibaatooyinka iyo baahida loo qabo jaamacad waayo degmada waa degmo aad u ballaaran caasimadda Muqdishona waxay u jirtaa 90 kilomitir waxaa jira degmooyin ama gobollo aad u fog oo jaamacad leh marka baahidii markaan aragnay waxaan go'aansanay aan ma aragtay hawl iyo ma aragtay maskax fara badan aan gelinay in degmada ay yeelato jaamacad. tirada ardayda dhigata ilaa hadda aan diiwaan gelinay waa 22 arday ayaan ma aragtay diiwaan gelinay. jaamacaddu waxay leedahay fakaltiyaal fara badan waxa ka mid ah education waxa ka mid ah ma aragtay caafimaad waxa ka mid ah beeraha waxa ka mid ah dhaqaalaha waxa ka mid ah ma aragtay computer science ayaa ka mid ah waxay kaloo leedahay koorsooyin gaagaaban ay leedahay. inta aan ku guda jiray booqashada jaamacadda Jubba ayaan sidoo kale waxaan la kulmay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Jubba farceeda degmada Walaweyn. bahda saxaafadda oo ugu horeeyo ma sheekeeyo iyo qaybtan RTN jaamacadda Jubba markii la bilaabo waxaan ahayn dadkii ugu horeeyay ee asaaskeeda ahaa faculty-ga aan ka barto waa education isla markaa qaybta history and geography may aad iyo aad in faraxsana barashada cilmigan hadda oo qaadooyn may waa qaybta education-ka maan u door bidnay waxyaabo badan oo uu hiriyay aawadiin in door bidnay oo macna education ku barano sidoo kale tan may faculty aan qaadanayo ama qaybtan ku qaado waa biology iyo chemistry ku qaadaday wana aad aan faraxsan macallimiinta biyaan inta maad nagaane. bismillah aniga magacayga Deeqa Axmed Cilmi waxna ka barto jaamacadda Jubba International University. markii ugu horeysay waxaan u hambalyeeynayaa macallimiintayda qiimaha iyo qaayaha badan iyo maamulahayga oo isku taxloojiyaan in ay jaamacad ka furaan degmadeena qaaliga ah ee degmada Walaweyn oo ay tahayna horumarkii ugu weynaay ama ugu horeeyay ay gaaraan degmada Walaweyn. waxaan bartaa aniga haddii aan kolley education maadada education-ka dhinaca xisaab iyo physics-ka waxaan ka baranaa faculty-ga education-ka. faculty-ga aan dhigto awalan waa education particularly gaar ahaan biochemistry. waxaan bartaa faculty of education gaar ahaan physics and math. inta badan ardayda ka qalan jibisa dugsiyada sare ee degmada Walaweyn ayaa waxa ay waxbarashada jaamacadda u doonan jireen magaalada Muqdisho oo 90 kilomitir u jirta degmada Walaweyn balse jaamacadda caalamiga ah ee Jubba ayaa noqotay jaamacaddii ugu horeysay ee xarun ka furata degmada Walaweyn abid taariikhda taasi oo dabooshay baahihii jaamacadeed ee ka jiray degmada Walaweyn. Mahad Axmed Cali TV-ga RTN degmada Walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose.